السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku soo nabad wanaagsan mana asxaabteedu waxaan noo baadiga ku joogtaan ku soo dhawaada markale muuqaal cusub maanta si aad u arkaysaanba horta maalmihii ugu dambeeyay ku dhawaad 4 maalin muuqaal maana soo gelin taas waan ka raali gelinaya muuqaalka oo aan in yar oo aan xanuunsado darteed aan muuqaalkeeda ka hakiye insha Allah maanta waxaan idin wada haddii ogsoono haddii aad tahay qof aan abidkii helin lacagta TRX oo free ah maanta halkan waa keli doonta haddii aad muuqaalkan kaliya daawato waxaa kaaga xiran tahay inaad tron free lacag free inaad shuba kaaga xiran tahay inaad muuqaalkan daawato kaliya waxaan ka codsan lahaa inaan intaan guda gelin muuqaalka la saarto intaan guda gelin muuqaalka waxaan ka codsan lahaa inaan subscribe saarto muuqaalka la saarto ugu soo birto ogsoono waxaan ku dhigi doonaa boodka linkigan qaybtiisa hoose muuqaalka tisho muuqaalka si aad uga soo gasho waxaan dhihi doontaa starti si aan kuugu sharaxo qaabka uu shaqeeyo boodkan iyo waxyaabo badan oo ku saabsan John dhahdo boodkan wuxuu ku soo qori doonaa qoraalka sidana waxaa laga wadaa kaliya waxyaabo kale maahan waxaad sidaas ku hesho 0.01 taas arkaysaa la yaabin waxaa halkaa kuu tusi doonaa free tron si aad heli doonto hab cajiiba oo aad free tron wax dhul noqmaan xataa waa lacag aad iyo aad u badan oo 10 tron kor u dhaafaysa maalin walba ka samayn kartaa halkaan marka intaan janaal aad joon garanaysaa joon alada mid walba ku dhufanaysaa si anigu u dhufanayo hadda mid koowaad ku dhufan hadda joon aa leedahay waa ka soo noqonaysaa haddana mid labaad ku tagaysaa kadib waxaad dhihi doontaa joon isagana sidii kuwii hore camal haddana waa ka soo noqon doontaa kadib kaab saddexaad ku dhufan doontaa joon aa dhihi doontaa haddana waa ka soo noqon doontaa kan afraad ku dhufan doontaa joon aa leedahay waa ka soo noqonaynaa markaa ka soo noqono waxaa kadib markaa intaas saddex xabo samaysid waxaa dhihi doontaa joonid waxaan filayaa inay ku jiraan dad xoogaa oo horay isaga soo diiwaangelin jiray bootska joon markaa dhahdid wuxuu halkan ku soo saari doonaa baas ama capture lagu doonayo inaad soo firfaagarayso kadib kaligaa dhihi doontaa qaybta ugu adag waa qaybtan waxaa lagaa doonaya muuqaalka si fiican u daawato si aad hadha ugu wareerin oo aadan iga soo weydiinin su'aalo badan markaan saad soo dhaho waxaa lagaa doonayaa qoraalkan yar ee halkaa ku qoran inaad qaybta hoose qaybtan kaa soo horbixi doonta in aad ku qorto ayaa lagaa doonaya qaybtaas lagaa doonaya inaad ku qorto haddii uu qoraalkan xoogaa yara sidaa aadan si fiican ugu jeejoodin oo waxaad dhihi doontaa reload image aa leedahay mid cusub lagu keenaya oo fahmi karto tusaalahaan kaasoo kalaad waa aad u fudud yahay 1 waaye 2 haddana y waa ku xigta y baa ku xigta 4 baa ku xigta k baa ku xigta 4 kale baa ku xigta kadib waxaad dhihi doontaa submit meesha qoonta oo qoraalka aad qorto hoosteeda aad dhihi doontaa baasid marka uu dhaw baa ka soo noqonaysa markaa ka soo noqotid kadib waxaad dhihi doontaa joonid aad dhihi doontaa markaa joonid dhahdo kadib waxaad dhihi doontaa balance meesha qoranta balance markaa dhahdid waxaa lagu soo saari doonaa in balansiga uu halkaan yahay 0.01 hadda waxaan kuu sheegayaa qaabka kaliya ee website-ka lacag loogu helo sida aad ka arkayso marka ugu horeysa aad bot kusoo dhigato linkigiisa qaybta hoose description-ka ku dhigi doonaa waxaa lagu sii doonaa 0.01 waa ka aragtaa sida balansiga waxa waaye friends ayaad lacag ku samaynaysaa bootkan ogsoono bootkan haddii aad ugu dirto 0.08 ayaa ku helaysaa halkii qof ee kusoo gala linkiga saa ogtiin hadda taroonka halkii taroon wuxuu u dhigmaa 6 dhuruq ayuu u dhigmaa ogsoono haddii aad bootkan aad u dirto 5 qofood ayna calaa qof kusoo galo 0.8 waxaa qaadan doontaa lacag gaaraysa 3 dhibic xoogaa haddii aad bootkan 100 qofood ama 50 qofood ama 20 qofood ugu tagto waxaa ka dhacsan doontaa maalinle waxaana kusoo geli doontaa taroonka ugu badnaa abid soo gal akoonka trust wallet-ka ama Postpaid-ka walba karta Postpaid walba insha Allah taala muuqaalkiisa waan ka soo duubi doonaa iyadoo ay dad ku soo galeen linkiga kadibna ay iska soo diiwaangeliyeen bootkan su'aal ah sidee baan u diri karaa asxaabtayda markaad doonaysaa asxaabtaada u dirto waxaa ku dhufan doontaa ref status ku dhufan doontaa markaa ku dhufatid waxaa halkaan aad ka geli doontaa waxaa halkaas ka koobiyo doontaa linkiga asxaabtaada u diri leed koobi aad leedahay halkaas ku dhufanaysaa koobi sidaas ku koobiyeysa asxaabtaadana u diri kartaa sidaa darteed aniga linkiga qaybta hoosaa kuu dhigay iska soo diiwaangeli anigana faa'iido ii tahay adigana faa'iido ku tahay tusaale maxaa yeelay haddii aad linkigaas iska soo diiwaangelin haddii linkigaas taaban meel aad ka helaysa malahan bootkan haddii aad iska soo diiwaangeliso anigana waxbaan kuga faa'iidaya waxaa muuqaal xigaan soo duubaya laakiin haddii saa cidna iska soo diiwaangelin linkigaas muuqaal kale ma soo duubi doono oo waxaa waaye aniga akoonkayga balansigay eber bay noqon doontaa ogsanow haddii aad iska soo diiwaangeliso bootkaas waxaan kuu soo sheegi doonaa anigana aan muuqaalka soo duubo oo lacagta kala baxo waxaan kuu soo sheegi doonaa haba aad adigana lacag ku heli doonto